ururka macallimiinta Soomaaliland ee gobolka Awdal kana qayb ah ururweynaha macallimiinta Soomaaliland ee dalka muddooyinkii u dambeeyay ku foganaa horumarinta iyo kor u qaadida macallimiinta ayaa magaalada Boorama ku qabtay kulanka bilaha ee golaha dhexe gaar ahaan gobolka Awdal warbixinta bishii u dambeysay waxyaabaha u qabsoomay iyo higsiga waxqabadka bilaha soo socda waxaana kala soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka ururka macallimiinta Soomaaliland Cabdiwahaab Faarax Nuur ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkani خاص ahaan gobolka Awdal Aadan Cumar Maxamuud iyo xubnaha golaha dhexe ee gobolka Awdal ururkani ku metelaa waxaan maanta isku nimidnay shirkeeni bilaha waxaanu isku nimidnay balinas xog wareysano ururka intii la asaasay labadii bilood ee ina dhaafay waxyaabihii noo qabsoomay muddada ururku asaasnaa waxaynu ku hawlanayn inaynu sameeyno inagu gobolkeenan waxyaabo fara badan ayaynu ku hawlanayn oo ka yahay qaab dhismeedka ururka oo inoo qabsoomay oo maanta inoo dhisan yahay golihii fulintu golihii dhexe waxyaabaha kale inoo qabsoomay inaga waxa ka inaynu sameeynay boardkii ururku inoo samaysan yahay waxa kale oo inoo samaysan agabkii aynu ku shaqeyn lahayn waxaynu sameeynay diiwaangelin buuxda aynu ku sameeynay macallimiinta gobolka ee ururka ku soo biirayay waxaynu sameeynay wacyigelin guud aynu ku faafinayno xogta ururka iyo ujeedada loo asaasay taasoo ay koow ka tahay inaynu macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku xidhmaan oo ay hal unit noqdaan sida laajligeed waxaynu u sameysanahay waxa weeye watacaawunu cala albirri wattaqwa ayaynu u sameysanahay inaynu walaalis caawino keen xanuunsan oo liitaynu daryeelno keena bilaa camalka ama xanuun ka kaxeeyay ama hawl kaleba shaqadii u diiday macallin ee soo shaqeeyay inaynu garab siino ayaa markaa ujeedka ugu waaweyn ee ururkaynu inagu asaasan yahay waxaynu kaloon xog buuxa maanta ka haynaa macallimiinta xanuunsan ee shaqeyn karay ee u baahan in la caawiyo taasna hadduu Ilaahay yiraahdo kuwa u taagan ee u maqan waa inaga cid kale maaha waxa kale oo halkan aan hambaliyo iyo bogaadin uga soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi iyo tiimkii uu hogaaminayay guushii ballaadhnayd ay ka soo hooyeen aqoonsi raadiska Jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaantii anagu haddaan nahay bahda macallimiinta anagu halkan aan ku dhalanay ku kornay iyadaan wax ku baranay Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dhiigayagii runtii saad ogtihiin ururkani maaha urur siyaasi maaha waa urur bulshada weey waa macallinkii iskuul galaaska ama iskuulka oo u soo gudbay bulshadii weey ururkaas Solta ama Somaliland Teachers Association loo soo gaabiyay inuu u shaqeynayo macallimiinta sidii uu maxay horumarin lahaa mid kale oo ururka uu maxay shaqadiisa kamid ah waxa jirta in ururku uu taagan yahay yaani dhinaca gabdhaha gaar ahaan dhinaca gabdhaha hadan oranama macallimiinta gabdhaha in uu xoojiyo oo maxay uu la shaqeeyo oo baahiyaadka haysta uu ka caawiyo bil walba ururka waxa uu qabsamaa kulan isxog wareysiya oo la isku xog wareysanayo wixii bisha qabsoomay lana qorsheeyo waxa la qaban doono bilaha soo socda iyo muddooyinka ugu soo fooleen ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo aasaasay waxa kamid ah waa mideynta iyo xoojinta wada shaqeynta macallimiinta dalka waa abuurida hanaan wada shaqeyn oo ay yeeshaan guud ahaan macallimiinta dalku waxa ku daraya kaliya ururkani maaha urur siyaasi ah waa urur ka madax bannaan siyaasad ujeedadiisuna tahay isku xidhka wada shaqeynta iyo horumarinta macallimiinta iyo tayeynta waxbarashada dalka si loo soo saaro arday ku hubeysan ku dhisan aqoon tayo leh oo hor u socota laakiin saacadii aan joogay meesha waxa iga muuqday wax badan baan mootay meesha iga soo baxay dad u heelan sidii ay dadkooda wax ugu qaban lahaayeen dad u heelan sidii dadkooda isku xiri lahaayeen dad u heelan sidii ogaan lahaayeen awoontoodii macallimiinta iyo meesha iga soo baxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan markaa kula talinayaa in si xoojiyo ururka iyo la niyad jabin dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka ururka macallimiinta Soomaaliland oo hadalka qaatay ayaa guud ahaan macallimiinta ku dhiirigeliya hawlaha shaqo ee hayaan isagoo ugu baaqay inay mar walba muujiyaan isku tashi runtii farxad gaara iyo tahay
inaan maanta kulankan nigala qayb galo oo markaa goobjoog aan u ahaado kulankan aadka u qiimaha badan leh waxaanan ka markhaati kacayaa runtii dadaalka aad samayseen iyo waxqabadka intaa leeg muddadii koobnayd ee ururku jiray sidaan iminka ka dheehanaya warbixinta guddoomiyaha wax badan baa inii qabsoomay aad baan runtii ii farax gelinaysaa waana wax runtii aan filayay waana mid runtii gobollada kale laftirkooga ay nagaga dayan doonaan insha allah horumarka aad samayseen waxaan leeyahay halkaa ka sii wada dadaalka sidoo kale halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan macallimiinta ururka soolta ee gobollada Somaliland iyo guddoomiyaashoodaba salaam baan hawada u soo marinayaa waxaanan ilaahay uga baryayaa inuu barakeeyo sidoo kale waxaan ku dardaarayaa isku duubnida iyo istacaawanka iyo iskarabsiinta oo ah astaanta ururkan Somaliland Teachers Association ee soolta uu u taagan yahay in markaa muxuu ahayaa caawisaan iska war haysaan